sidii aad warkaba ku maqlayseen codbixinta doorashada Mareykanka ayaa ka socota dalkan guud ahaan waxaana ay dadku kala dooranayaan haweeneyda Hillary Clinton oo 69 sano jira isla markaana matalaysa xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo 70 sano jira una tartamaya xisbiga jamhuuriga. doorashada waxaa lagu tilmaamay inay taariikhi tahay waxaana sabab u ah haddii ay Hillary ku guulaysato waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee madax ka noqota Mareykanka xilkana kala wareegta madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah. waxaa kaloo taariikh ka dhigaysa haddii uu Donald Trump ku guulaysto iyana waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee nin ganacsade ah oo aan siyaasad way aragnimo badan u lahayn uu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka. labada midkood waxay ku xiran tahay halka codadka shacabka Mareykanka ay dhacaan marka doorashadu ay soo gabagabowdo caawa natiijadana lagu dhawaaqo. goobaha ay ka socoto codbixinta Soomaaliduna ay sida weyn uga codeynayaan waxaa ka mid ah Minnesota, Virginia iyo Ohio. aynu ku horeyno magaalada Fairfax ee gobolka Virginia waxaa qadka telefonka haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Xuseen, wada maqlaysaa? hawa ku baqlay colaad waa mahadsantahay. colaad haddii aan kugu horeeyo doorashadu waxay u socotaa si habsami ah. markii hore subaxdii hore saaka waxaad muddaa safafkeeda dheeraayeen laakiin hadda waxay u socotaa si degdeg ah oo qofku markuu galo meesha wax aan ka badnayn 10 daqiiqo ayuu ku jirayaa oo codkiisa soo dhiibanaya. waa gartay marka ilaa hadda dadka safafkii dheeraa ee saaka ay bilaabeen inay galaan iyo halka ay marayaan hadda safafkii waa soo daba yaraadeen oo waxaad moodaa in sidii hore aad uga yar yihiin maadaama weliba goobta aan joogo ah goob xaafad ku dhex taalla. waxaa agteyda ku sugan nin dhalinyaro Soomaali ah oo kamid dadkii codeeyey. walaal magacaad? magacaygu waa Raage Cabdullaahi Maxamuud Boqor. way Raage, bal ka waran maanta codbixintu sida u dhacday? codbixintu waxay u dhacday si habsami ah iyadoo uusan jirin wax layn dheer ah, si fududna waayo u dhacday. dadkuna waa wada voodayaan ama codkooda ayay dhiibanayaan. marka waxaan si gaar ah ugu sheegi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo haysata jinsiyadda Mareykanka inay ka qayb qaataan doorashada oo ay u codeeyaan musharaxa ay taageersan yihiin. waa tahay Raage, waxaad ka mid tahay dadkii saaka kusoo kalahay ee waqti hore yimid. bal maxaad la kulantay intii aad doorashada ay socotay? wallahi waxa aan dareemay dadku inay shucuurtoodu kor u kacsan tahay oo ay ka duwan tahay doorashadaanu doorashooyinkii hore aan u arki jiray oo ay dhammaantood dibadda u yimaadeen intii karti u leh in ay codkooda dhiibtaan ay si hufan codkooda u dhiibanayeen. waa tahay waad mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee iyagu ka qayb gelaya doorashada oo halkan Fairfax ka dhiibtay codkiisa oo ka warramayay qaabka ay doorashadu u dhacday iyo siduu u arkay. aad baad u mahadsan tahay Xuseen. wixii doorashada kusoo kordha iyo faahfaahinta la xiriirta marka natiijada soo baxdana goobaha codbixinta iyo dadkii aad la hadashay qaarkoodna dareenkooda waan maqli doonaa. aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo qadka si toos ah ugu jiray gobolka Virginia dalka Mareykanka doorashadana aan kala hadlaynay. waa tahay haatana bal aynu tagno Columbus gobolka Ohio. halkaasina waxaa ku sugan wariyana Cabdikaafi Yuusuf Aadan. hase yeeshee Cabdikaafi mar kale ayaanu idin maqashin doonaa. aad baad u mahadsan tahay Ibrahim. Cabdikaafi qadka ayuu si toos ah ugu jiraa. Cabdikaafi, wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Ohio doorashada ka socota. aad waa mahadsan tahay. gobolkani Ohio doorashadu si xawliha ay uga socotaa. ilaa saaka leemanku way aad bay usii dhaadheer yihiin. dadka Soomaalida ahna dadka codeynayay kamid yihiin oo aad codkooda usoo bixinaya oo sidii hore looga bartay Soomaalidu intooda hore wax lagu dacaydeyn jiray inaysan soo bixinin aysan codeynina. keliyana ma aha dadka Soomaalida ah, dadka soo galootiga ah khaasatan Afrikaanka ah dacaydii horeete meediyaha ama saxaafadda maxalliga ah ay ku eedeyn jirtay waxay ahayd inaysan codeynin, balse midaasi maanta waa isbedeshay. sababtana waxaa sabab u ah hadallada kulkulul ee doorashadaani ay abuurtay iyo dacayadaha faraha badan ee nacaybka ku salaysan ee suuqa galay ee khaasatan sida Soomaalida loogu dhaleeceeyey gobolka Minnesota kale marka uu ka hadlayay Donald Trump. taasi waxay kaleeftay in hooyooyin iyo aabooyin waaweyn oo aan horey u codeyn jirin ay soo baxaan meelaha codka yimaadaan ay codeeyaan. ilaa haddana si qurux badan baa codbixinta u socotaa.
waa gartay gobolka ohio wuxuu ka mid yahay gobolada sida weyn ay uga baratamayaan musharaxiinta ee dhinaca gobolkaasi u dhaco doorashaduna ay u dhacdo sida dadka khubaradu ay sheegaan taariikhdana marka dib loo eego doorashooyinka dalka maraykanka ka dhacay bal haddaad ka waranto si guud ahaan dadka muhaajiriinta ah ama muslimiinta ah ama laga tirada badan yahay siday u codeeyeen marka soomaalida laga soo tago colada waa su-aal aada u fiican aad bay u codeeyeen soomaalidu iyo muslimiinta dhammaan ku nool goboladan gobolkani ohio colada waxaa xusid mudan aan horay doorashooyinka hore looga arki jirinin in dhinaca culamo udiinka ama masaajidadu ay qeyb weyn oo lixaad leh ay ka qaateen inay dadka diiwaan geliyaan kabacdina ay ku qasbaan inay codeeyaan oo imaamadu ay hormuud ka ahaayeen dadka qaaditaankoodii aan haysanin gawaari ay ku tagaan meelaha codbixintu ay ka socoto marka taasina wax horay u dhici jiray ama loo arki jiray ma ahan taasina sababtu waa sidii hore aan usoo sheegayba doorashadani way ka gedisnayd doorashooyinka hore way ka kulul badan tahay wayna ka xamaasad fara badan tahay gobolkani ohio colaada saa sheegtay waa run qoladu u codeeyo ama qofku u codeeyo ayaa inta badani guushu ay raacdaa gobolkani ohio waxaa la dhahaa taariikhdiisa weli ma guul daraysanin oo macnaheedu ay tahay intuu qof doortay qofkuu doortay lagama raynin taariikhdu hal mar bay soo martay markaasina waxay ahayd madaxweyne inuu ku guul daraysto ohio welina uu noqdo madaxweyne 43 madaxweyne kale oo soo martay maraykan ohio ay ku guuleysanayeen maantana waxaa la rajeynayaa taasoo kale inay dhacdo oo ay codka ku guuleysan doonaan mid kamida midkooda laakiinse waxaan la saadaalin dooninin haddii Donald Trump uu ku guuleysto Hillary Clinton ma ku guul daraysan doontaa doorashadaani 2016 mise weli way guuleysan doontaa lama saadaalin karo markii la fiirsho codka Hillary iyo Donald Trump ee gobolkani Ohio labadu waa isku dhagan yihiin wax dhibca ma kala horeeyaan walow ay isbedelayso marka waan arki doonaa saacadaha soo socda wixii isbedela waa gartay aad baad u mahadsantahay cabdi kaafi waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo tabinta doorashada kaasi waxaa wariyahayaga cabdi kaafi yuusuf aadan oo ku sugan gobolka ohio magaalada columbus qadka telefonka ayuu si toos ah ugu jiray waayahay gobolka ay degan tahay soomaalida ugu badan dalkan maraykanka waa minnesota waxaana gobolkaasi maanta sidoo kaleeto taariikh dhigi doonta ilhaan cumar oo ah gabar soomaali ah oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolka ilhaan cumar ayaa saakeeto markii ay codkeeda dhiibanaysay uu dareenkeeda wax ka weydiiyey wariyaheena halkaas ku sugan maxamuud mascade mascadaba waa mahadsan tahay voice of america kulli waa idin salaamaya dadka wada dhegaysanayo maanta waxaan dareensanahay farxad aada u weyn waxay ii tahay maalin ka duwan maalmihii hore oo aan codayn jiray maanta waxaan jaanis u helayaa in anigana aan magacayga xariiqo oo aan ku jiro dadka la codaynayo marka farxad weynay ii tahay waxaan u malaynayaa farxad weyn inay u tahay soomaalida dhan oo ka codaynaysa asdaarkeyga waa gartay haddii aan dabcan sheegno ilhanay keliya ayaa hadda tartamaya kursigan oo dabcan qof kale oo kula tartamaya ma jiro dhinaca republicanka adiga xisbiga dimuqraadiga ka socota dhinaca republicanka wiil Soomaaliyeedna ka socdana uu iskaga baxay bal arinta doorashada kaliya aad ku jirto iyo sida ay tahay iyo codka sida aad u helayso dad bulshadana dhageysanayso sharax wiilka wuu tanasulay laakiin magaciisa weli wuu ku qoran yahay so waxaan filayaa in dadka intaas ay kala fahmi karaan oo magaciisa markaynan arkaanaynan iskaga codaynin waxay iiga dhagyar tahay oo ay iiga fududahay primarygii oo 3 qof aan ku tartamaynay markii aad ololo kulul aadan ku jirin oo magaca keliga aad meesha ka sharaxan tahay ama aad tahay campaignka keliya oo dhaqdhaqaaqa suubinayo way iska fududahay marka taasna waxay ii suurta gelisay in soomaalida dhan iyo muslimiinta minnesota dhan ku nool in aan waqti geliyo oo iyagana aan lasoo hadlo oo u ololeeyo si ay iyagana usoo saaraan dadka xisbiga dimuqraadiga ah oo xaafadahooda degan xaafadahooda ka tartamayo iyo wiil kaleeto isigana soomaali ah oo u sharaxan maxaa la dhahaa isha ka sharaxan magaalada St. Cloud
oo u sharaxan degmada St Cloud golaha deegaanka. Marka waxaan ku faraxsanahay in aan waqtigaasayta helay oo ay fursadaas fiican aan helay. waxaan rajaynayaa in Soomaalida iyo Muslimiinta Minnesota ku nool ay noqonayso taariikh ay gelayso in sidii ay ku codeeyeen iyo quwadii ay tusiyeen. waxaan ku weydiin doonaa dabcan hadaladii kululaa ee Donald Trump ku weeraray Soomaalida, laakiin marka ka horeysa haddii aan ku weydiiyo Ilhaan waa gabar muslina Soomaali ah, dalka Mareykanka qaxootinimo ku soo gashay, dhibaatooyinkii faraha badnaa ee Soomaaliya ka soo dhacay dadkii ay saameeyeen kamida. haddii aad nafsadaada u sharaxdo ama aad u tilmaanto qofka aad tahay iyo sida heerkan aad ku soo gaartay ee dadweynahana dhageysanaya adigoo soo koobaya. waxaan kusoo koobi karaa dadaal. saa usoo sheegtay maxaa lahay sheeg nolosha aan maxaan lahay kusoo koray iyo sidaan inta ku imaaday iyo America fursadaha aan helay maynan ahayn wax iska fudud, laakiin dadaalaa keenay. waxaan ku dadaalay in aan ka mid noqdo dadka haddee societygooda wax ka qaybsanaayo. marka waxaana rajaynayaa in dadka na dhagaysanaya iyo dadka Ilhaan aqrin doono joornaalada beri lagu soo daabici karaan intaas xasuusnaadaan qisadeydii iyo sheekadeydii iyo meeshaan aniga gaaray in aniga keliya aanan gaari karin, oo iyaga tusaale ay u noqoto, oo dhiirigelin ay u noqoto, oo ay tahay wax qof kas meel uu gaari karo haddii uu dadaalo. waa gartay. dabcan waxaa la isweydiin karaa waxa kugu dhaliyey inaad sharaxdo, inaad heerkan soo gaarto, inaad orodo siyaasadda kusoo geliya. haddii lagu doorto ood soo baxdo dabcan sidaad rajeynayso oo caawa marka ay soo noqoto natiijada doorashadu, waxaa maskaxdaada ku jira ee aad doonaysay ku riixayay inaad tartanto, aad is leedahay waxaas iyo waxaasaa dhiman oo aad qaban lahayd? isbedelka keliya oo ka dhici karo markii aad haysatid qof golaha go-aanyada lagu gaarayo oo dareensan dhibaatooyinka aan qabno annaga haddii aan ama dhalinyaro nahay ama aan nahay dadka midabtakoorka lagu suubinayo, dadka saboolka ah, dadka immigrant ah wadanka ku cusub, dadka nolol soo maray oo qaxootinimo ah. marka waxaa igu qasbay aniga inaan u tartamo dadkaas, inaan cod u noqdo hooyooyinka ilmaha yaryar korsanayo oo rabo nolol fiican ciyaalkooda inay u suubiyaan, laakiin arko in aysan ahayn systemyaalka jiro systemyaal ciyaalkeena loogu talagalay oo ay ku faa'iidaysan karaan. marka taasaa igu qasabtay. waxaan rajaynayaa in aan waxaas wax ka bedelo, inaan wax ka bedelo waxbarashada maxaa la dhahaa oo aanan kulligeyn u wada sinayn, inaan wax ka bedelo shaqo abuurista nagu yar, in aan wax ka bedelo sidii ay ku dhismi lahaayeen ama ay ku jiri lahaayeen businessyaal Soomaali ay leeyihiin. marka waxyaalo badan oo annagana wax noo taraayo, laakiin societyga dhan aan ku dhex nool nahay iyagana wax u taraayo oo kulligeena aan ka wada faa'iidaysan karno. weerarkii Donald Trump uu Soomaalida ku sameeyay 2 maalin ka hor markuu magaalada yimid, qof Soomaaliya tahay sharaxan oo xil dalka Mareykanka haysata fursad ay uga qabanayso, maxaad ugu jawaabaysaa? don waxaan ugu jawaabayaa waxay ii tahay aniga maanta maalintii jawaab fiican uu heli lahay caawa markii Minnesota ay asiga ka codayso oo anigana ay codayso noo Soomaali oo immigrant muslim ah. taas jawaab asiga ku filan. Sara Cabdi Axmed, waa sidaas aad u jeedo Ilhaan Cumar waxay dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan iyo muslimiinta iyo guud ahaanba dalka Mareykanku ay rajeynayaan inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee muslima xil noocaasi ah dalka Mareykanka ka qabato. aad bay umahadsan tahay. taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo gabadh Soomaali ah oo u tartamaysay aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Ilhaan Cumar ayaa saakay markii ay codkeeda dhiibanaysay uu dareenkeeda wax ka weydiiyey waryahayaga Maxamuud Masxade.
waan ku noqon doonaa mascadda iyo wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Minnesota ee doorashada waxaase nala jooga madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yabarow oo isagu saakay ka soo codeeyay degmada uu degan yahay ee Alexandria ee gobolka Virginia. Cabdiraxmaan, saaka waad codeysay waxaana dhageystayaasha badankooda ay kaga barteen falanqaynta doorashada Mareykanka. marka waxay nagu dhalisay inta inaad adiguna maanta nagala qayb qaadato barnaamijka oo aad nala falaqayso. marka hore nooga waran aaga aad ka codeysay iyo sida dadku halkaasi aad ku aragtay ay u codeynayeen. colaadu aad baad mahadsan tahay marka hore. marka xigta halmaam hadal kuma jira la yidhahda afka malaha kaa boobay ilhaan waxay u baratamaysaa aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. haddii aan se usoo noqdo meeshii saakaan ka codeeyey anigu waxaan deganahay Alexandria, Virginia. aroornimadii abaarihii 5 aroornimo ayaan tagnay aniga reerkayga carruurtii la socotay oo kulligood wada codeynayay. waxa markaa ay ahayd laymanka markaa aan tagnay ilaa iyo 40 camal baa naga horreeyay dad ah, laakiin waxaa aad ii soo jiito markiiba indhahaygu ay qabteen dadka meesha safkaasi ku jiray waxay u badnaayeen dadkan la yidhaahdo immigrantska sideen oo kale ah waddanka soo degay ee qaatay jinsiyadda Mareykanka, hadday ahaan lahaayeen kuwa Latinoska, hadday ahaan lahaayeen Soomaalida iyo Ethiopian aad u tiro badan iyo dadka oo meesha dhinacaasaan deganayn haddeertaan usoo guuray muddo dhowr bilood ka hor aad dadka ugu badnaa. waxaa marka aad arkaysay lineka inkastuu uu aad u dheeraa markii aan nimid, haddana markii la furay 6 aroornimo ayaa la furay. markii la furay waxay qaadanaysay qofkiiba malaha 10 daqiiqo haddii ugu bato 15 daqiiqo markiiba waxaad arkaysay in oo ay dadka ay horay markan ay ka soo baxayaan. dadka howlwadeennada ah ee loo xil saarayna waxa ay qabteen shaqo aad u sarreysa oo dadkii siday u kala hagayeen waxay u qaybinayeen warqado muujinaya kuwa ay ku cadeen doonaan kuwa lamida oo markaa tusaale kasii qaadanaya iyadoo qofku safkaba kusii jiro ayuu wuxuu arkayaa habka loo codeynayo iyo nidaamka laga doonayo. marka qofku markuu meeshii tago waxaad dhiibanaysaa warqadaada aqoonsiga ama drive license-ka aad wadato ayaad dhiibanaysaa. horeyba waxaa lagaa baarayaa inaad meesha aad ka register garaysan tahay. qoladaasa marka waxay ku siinayaan warqad muujinaysa inaad meesha ka register garaysan tahay. line kalaad gelaysaa, lineka kalaad gashaa ayaa markaasi waxaa lagaa siinayaa warqado isku xiran oo ay ku dhex jirto midii lagu codeynayay. taasaad goodo u qaadanaysaa, meel adig ku gaar aad la fadhiisanaysaa. saasay codeynta u dhacday. guud ahaanna waxaan isleeyahay waxay ahayd si nidaama oo wanaagsan oo dadku inkastoo badnaayeen haddana si howl fudud howl loo qabtay oo loo agaasimay ayay ahayd. Cabdiraxmaan, haddaan mid si kooban ku weydiiyo, waxa la filayay oo warbaahinta adduunka iyo Mareykankuba ay hadalhaysay dadka madowga ah iyo Latinoga ama dadkan Koonfurta America ka yimid dalkan inay sanadkan cod badan bixin doonaan oo isoo bixi doonaan. muuqaalkii sababkii aad arkaysay ma ku badnaayeen dadka nooca ah? طبعا way ku badnaayeen, laakiin gobolkan Virginia matalan dadku way kala qaybsamaan. waqooyiga Virginia oo ah meesha aan deganahay sidaan horeba u sheegay waa meesha ay ku badan yihiin soo galootigu. waa dabcan Latinoska ayaa joogay, dadka kale madowga ayaa joogay, laakiin dadka cadaanka ah waxay u badan yihiin dhulkan markan oo ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee u badan koonfurta Virginia. marka xagga markaa tagtana waxaad arkaysaa dad markan oo wada cadaana oo waxaad isleedahayba dhulkani hal qof oo madow ama Latino ma joogo. hadday aad aragtana wax yar bay noqonayaan, laakiin markaad timaado waqooyiga Virginia, Northern Virginia meesha la yiraahdo ayaad ku arkaysaa dadka soo galootigu ay ugu badan yihiin. Ibrahim, maxaa ku daraysaa? Cabdiraxmaan, bal aan anigu ku weydiiyey, yaad u malaynaysaa inuu ku badi doono Virginia oo heli doono 13 electoral college ee gobolka Virginia uu leeyahay? warinta 13 electoral college bay leedahay, waana muhiim. waxaan isleeyahay imika siday u socoto runtii Virginia waxay ka mid tahay Ibraahimow meelaha runtii candhuufinta dib loo loqo leeyahay alla ilaahay xaggee bay tagi doontaa iyay u codeyn doontaa. sababtuna waxa weeyaan asal ahaan Virginia waxaa lagu yaqaanay gobol oo u codeeya jamhuuri oo sanooyin badan Virginia ay haysteen xisbiga jamhuurigu. laakiin sanooyinkii dambe waxaad arkaysay ama ha ahaato sababta imika aan sheegayna soo galootigu ha ku soo bataan ama sabab kale ha jiraan, laakiin in ay dhinaca jamhuuriga ay u codeynayeen oo Barack Obama waa kii ku badiyay. sidaa daraaddeed waxaa taa weliba usii dheer in maanta doorashadan loo dareeray xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ay madaxweyne ku-xigeen ka dhigatay Tim Kaine in la yidhaahdo oo senator hadda ka ah Virginiadan aan ka hadlayno, horeyna governor uga ahaa, kasii horna magaalada caasimadda u ah gobolka Virginia ee Richmond mayor ka soo noqday oo siyaasadiisa halkaa ka soo bilaabay. sidaa daraaddeed
af Spanish badan buu ku hadlaa oo dadka Spanishka afkooda ku hadlaa oo wuxuu leeyahay in dhaqan badan oo markana oo taariikh uu ku leeyahay xagga Spanishka Virginia muddo badan soo deganaa oo markana uu xilka ka soo qabtay aad bay u caawinaysaa inay dhinaciisa u soo rido dad badan oo reer Virginia oo markay arkaan magaciisa iyo Hillary oo isku dul qoran inay isaga u saxiixaan laakiin taariikhda ayaa qori doonta halka ay Virginia caawa tagto sida gobollo badanba looga fadhiyo caawa dadku ay markay casheeyaan ay intay lugahaas dul saartaan ay oran doonaan too caawa xagee bay u dhici doontaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo stuudiyaha nala joogay oo isagu saaka ka codeeyay degmada uu degan yahay ee alexandria ee gobolka virginia halkaad weli nagala socotaana waa washington waa hagaag waxaan ku noqonaynaa gobolka minnesota wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ee gobolka minnesota waxaa qadka ku jira waryaheena maxamuud mascade maxamuud maxaa ugu dambeeyey sida doorashada u socoto iyo dareenka gobolka maxamed aad baad umahadsan tahay gobolka minnesota soomaalida ku dhaqani waxaad moodaa inay usoo baxeen in ay doorashadan si mugle uga qayb qaataan oo baaxad leh waxaana aad moodaa colaadow dadku in ay ka caroodeen hadaladii Donald Trump ee uu toddobaadkan gudihiisa markii magaalada Minneapolis mid uu ku weeraray Soomaalida inay yihiin dad wadanka dhibaato ku soo kordhiyay marka dad weynihii aan la kulmay ee faraha badnaa ee maanta goobo kala gedisan oo aan tagay codkooda ka dhiibanayay dhammaantood waxa ay muujinayeen siday uga soo horjeedaan Donald Trump iyo waxa kaliya ay tahay in ay ku muujiyaan dareenkooda inay tahay codkooda inay u dhiibtaan midna xaafadda Soomaalidu ay ugu badan tahay ee Cedar waxa ku dhaqan Soomaali aad u fara badan isla markaasina waa goobta ay tartanka hadda kaga jirto gabadha Soomaaliyeed ee xaafadda laga dooranayo Ilhaan ee golaha wakiilada ee gobolka Minnesota sidoo kale waa meesha Cabdi Warsame laga doortay Soomaali aad u fara badan baa ku dhaqan meesha codka ay ka dhiibanayeen dadku safaf dhaadheer oo aad u fara badan ay ku jireen haddana waxaad moodaa si habsami socod wanaagsana inay hawsha ku socotay wax dhiba oo dadku ay la kulmeen ama ay ka cabanayeen ma aan arkin si faraxsan ay codkooda u dhibanayeen waxaana qaar ka mida oo aan la kulmay ay iga warrameen dareenkooda iyo weliba sida ay maanta u soo codeeyeen iyo cidda ay u codeeyeen marka hore magaca shukri maxamed miraal la yiraahdaa ay iga waran maanta waad soo codeysa Soomaa soo codeeyay xamaasada Soomaaliduna aad bay u kacsan tahay Hillary Clinton baan u codeynay dantaa noogu jirta ubadkaanu leenahay waxbarashada waxa ka qabato waayeelka waxa ka qabato marka ayadaan u soo codeyno la hayna waxyaabaha aad ku xulatay oo adiga shakhsiyan ku qanciyay inaad Hillary ugu codeyso maxaa kamid ah waxba muslimiinta kama sheegin waayeelka wax kama sheegin Soomaaliduna waxba kama sheegin sidaasaan u xilanay oo ku raacna waa gartay marka ninkii kale ee Donald Trump isaga maxaa leedahay sheegina wuxuu Soomaalidu wax ka sheegay Soomaalidu caayay soo galootigu caayay totally ma rabna isaga ma doonayna hadaan Soomaali nahay codkaaga marka aad u codeysay isaga aad u codeysay Hillary Clinton maxaad isleedahay caawa maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa inay guulaysato kor marto ayaan rajaynayaa ilaahayna ka baryaya aad baad u mahadsan ilaah baan ka baryayaa inay guulaysato hooyo magaca Asha waad soo codeysay maanta Soomaa waan soo codeeyay yaad u codeysay Hillary Clinton soo codeysay nacam maxaad ku dooratay Hillary Clinton dantayada ku jirta ilaahay ka sokay waa gartay waxaan rabnaa insha Allah bidmalaga intaan meelahan joogno inaan maaragtay dantayada ku jirto baanu garanay waxyaabaha dantaada ah waad isleedahay waxaabaad wax ku xulatay maxaa kamid ah caafimaadka guriyaha midab takoor la'aanta madcadaadinta maaragtay oo nolol ku hayo abka nolol ku shago iyadoo aan meel bal la gaarin waxyaabahaas marka ninka kale ee iyada la tartamaya isaga maxaad isleedahay yaa labadooda fursad badan baad isleedahay wallahi hadduu qabsado anigu diyaaradda ugu horreysaan raacay waa bis waa go-aanan gaaray waddankayga baan gaarayay ilaahay hadduu qadaro isagoo xabadi ka dhacayso oo nabadi ka jirin isagaana socdaa maadaama qabsado maamo adiga magaca xaliime aadan iga war waad soo codeysay maanta waa soo codeeyay haye yaad u codeysay Hillary Clinton baad u codeysay maxaad ku xulatay Hillary Clinton inaad u codeyso ku codtay ilaahay inuu nagu guuleeyo oo ay nabad noo horseedo oo ay haddii allaba kuu roon yahay wanaag iyo nabad noo horseedo ninkii caytamayay arkayay wixii loogay ku hadlayna ilaahay naga qabto baan u doortay
waa ta aad baad mahadsan Abdullahi Cabdi Maxamed Cabdullahi Maxamed waa soo codaysa waa ku jeedaa oo calaamadii inaad soo codaysaa kugu dhagan aad iyo aad bal ii waran yaad u soo codaysa maanta waxaan u codayay Hillary Clinton waayo nacaybka ninkan Trump u wado wax loo dul qaadan kara ma aha marka saakay asaga ugu soo kacnay inaan la dirno ninka ka saarna meesha insha Allah marka adigu waxaad ba halkan u timid sida daram u joojin lahayd Trump loo joojiyo si kale ma loo joojin karo marka codkaaga leedahay waad ku shaqaysanaysaa aad iyo aad walaalkay aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascade oo la hadlay qaar ka mid a dadkii codkooda soo dhiibtay gobolka Minnesota weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga waxaanu ku guda jirnaa tabinta doorashada dalkan Mareykanka Ibrahim colaad oo keliya maaha Mareykanka ee doorashadan waxa ay saameyn weyn ay ku yeelato guud ahaan dunida haddii noqon lahayd siyaasadda dhaqaalaha iyo dareenka dadweynaha meelaha saameyntaasi laga dareemay ayaa waxaa ka mid ah dalka Britain oo xulufo dhow ay yihiin Mareykanka haddaba wariyaheena magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa haatan halkaasi ku sugan oo khad ku jira Ridwan ma maqlaysaa aad buu mahadsan yahay wariyaheena Ibrahim aad baad mahadsan tahay Ridwan waan ku noqon doonaa malaha qadka ayaa ka yara xumaaday Ridwan aad maqlaysaa fiican ma maqashaa Ibrahim Ridwan bal nooga waran dareenka doorashada ee London aad baa u mahadsan tahay runtii doorashadan si weyn ayay dadku ula socdaan waxaanad moodaa in guud ahaan warbaahinta dalkan iyo dadyowga guud ee dalkan ku noolba ay si weyn indhaha ugu hayaan runtii soomaalidana waxaad moodaa inay xiise gaara u leedahay waxaana jeclaan lahaa in qaar ka mida dadka soomaalida ee ugu caansan ee ku nool dalkan aan arrimahaas wax ka weydiiyo waxaa hadda ila jooga xuseen maxamed faarax caydiid oo muddo 7 sannadood ah ku noolaa dalka Mareykanka runtiina soo qabtay xilal kala duwan Soomaaliya xuseen arrinta doorashada marka la eego iyo dadka Soomaalida iyo guud ahaan dareenka muslimiinta ee adiga kula muuqdaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kasta joogtiin dareenka oo doorashada ka socoto Mareykanka shacabka ku nool London oo muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida iyo Afrikaanka iyo wadamada Carabta aba waxaa loo arkaa soo bixitaanka markii ugu horeysay gabar dumar ah inay rayso oo ay arag badan leh dowladda ka soo shaqeysay dowladda Mareykanka ninkeedana ahaa madaxweyne hore mudane Clinton waxaa loo arkaa inay tahay isbedel dan iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan wax badanna ka qaban karto una ahadan in ay horumar ku gaaraan maadaama ay iyada tahay qof aad u danaynayso geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waa gartay doorashada dabcan waa la socotaa maxaad isleedahay ma Hillary Clinton aad guuleysan kartay kula tahay mise Donald Trump markaan qiimeeyo siyaasadda maadaama waayo-aragnimadiisa ay yar tahay mudane Trump waxaan u arkaa in waxgaradka labada xisbiba sanadka iyo gobolada Mareykanka xagga dib u dhiska xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka wax badan bay qabteen iyada iyo madaxweynahii hore oo hadda xilka dhiibi doono Obama waxaan qabaa in iyada ay ku guuleysan doonto number fiicanna ay ku guuleysan doonto aad baa umahadsan tahay waxaa kaloo ila jooga xuseen waxaa ila jooga maxamed xuseen awliyo oo horey usoo noqday safiirka Soomaaliya say kula tahay adiga doorashada dhacaysa bismillahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda VOA-da Ridwan ugu horeeya iyo walaalaha kale oo na xiriirinaya doorashadan Ridwan waxaan moodaa in ay xoogaa ay leeyihiin ay u eg tahay tii ka dhacday Yurub looga baxayay Britain ninkan la yiraahdo Yurub ay uga baxaysay Britishka ay uga baxayeen waxaad moodaa in uu 50 sano oo adduunka love and peace and harmony lagu wada joogo dadku ay isku mid ka ahaayeen ama dimuqraadiyadii ama isdhexgalkii inuu sii burburayo America ninkan la yiraahdo Donald Trump horta inuu meeshaan soo gaaraba ma ahayn laakiin waxaad moodaa dad cunsuriyiin inay wataan baqdinta iigu weyn marka waxay tahay aniga inuu nagu soo baxo oo leesma lahayn cidna ma lahayn British ayaa Yurub ka baxaysa balse way dhacday marka wadnahan farta ku haya shacabka Soomaaliyeed iyo kan Islaamkaaba waxaan ugu baaqayaa inay doortaan Hillary Clinton ninkaas waa nin nacaybkayga la soo banbaxay marka anaguna waxaan nahay people of revenge and reward dad aarmagta amaan la gudo waa in la nacaa siduu noo nacay loo nacaa aad baa umahadsan tahay aan kusoo gabagabeeyo
maxamed cabdi oo kamid ah dadka wax ka bara jaamacadaha dalkan adoo soo koobaya waa maxaa adiga dareenkaaga iyo doorashada maraykanka runtii waa mahadsan tahay ridwan doorashadana waa mid aada taariikh u ah muhiimna u ah dowladaha adduunka caalamka oo dhan iyo midda maraykanka gaar ahaan waxa weeye labada weji ee maanta ay ku socotana waa midaan taariikhda maraykanka kusoo korodhay oo dadku adiga faa'iidaystaan laakiin run ahaantii waxaad moodaa in siyaasadaha isberber ordahaya ay ku kala duwan yihiin oo ay tahay mid ku salaysan realityga maanta ka jirta adduunka iyo mid aad moodeysa inay innovation tahay oo dadku ay macno u sameyneynin laakiin we hope in gabadhani hadda u tartamaysaa ay kusoo guulaysan doonto ay kusoo bixi doonto maadaama ay arrintan u muuqato shacabka adduunka oo dhan inay ka midaysan yihiin arrintaas ay noqoto aad baa umahadsan tahay runtii waxaad moodaa guud ahaan dareenka dadka soomaalidu in ay laftirkeeda wax weyn maaragtay ay qayb ka tahay hadallada donald trump oo ay u arkaan haddii uu guulaysto inaanay u wanaagsaneyn guud ahaan dadka soomaalida iyo dadka muslimiinta ahba waa hagaag aad baad umahadsan tahay ridwan kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga ridwan xaaji cabdiweli oo qadka toos ugu jiray magaalada london nagala qayb qaadanayay tabinta doorashada dalkan maraykanka iyo dareenka dadka britain ku nool ee soomaalida ah haatanna waxaanu u jalleecaynaa dhinaca falanqaynta doorashada waxaa nagala qaybgalaya oo si toosa qadka ugu jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday soomaaliya haatanna ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka ohio waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya professor maxamed mukhtaar oo wax ka qora taariikhda africa iyo bariga dhexe barana ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalka maraykanka labadooduba qadka ayay si toosa ugu jiraan waxaan ku hormarayaa maxaa ugu weynaa waxa ay ku duulayaan ee horseedi kara labadan murashax in dadku doortaan ama ay u dooran waayaan hillary clinton iyo donald trump waxaan ku horeynayaa professor maxamed mukhtaar waa mahadsantihiin aada iyo aad baad umahadsantihiin inaad naga soo qaybgeliseen dooda tani runtii waxaa loo baahan yahay baan umaleynaya in laistuso labada xisbi guud ahaan waxyaabaha mabaadidooda ah ama waxyaabaha ay ka midaysan yihiin ama ay ku kala duwan yihiin waxaad moodaa runtii wax saas u weynba badanaaba inaysan ku kala duwaneyn baad umalaynaysaa nimankan jamhuuriyiinta la yihahdo waa dad muxaafidiin ah oo dad saqunyeer socod ah oo kasoo horjeeda badanaaba ama difaaca waxyaabihii dhaqan ahaan horey u jiri jiray masalan dhaqankii maraykankii hore guurka isheeg in ay maaragtay abortionka laga soo horjeedo in maaragtay isheeg qof waliba individual qofka inuu waxuu rabo uu yeelan karaayo xisbiga dimuqraatigana wuu kasoo wada horjeeda intaas oo dhanba yani wuxuu aaminsan yahay in maaragtay horusocod la noqdo oo muxaafidnimada laga baxo in wuxuu ogol yahay in dhaqanadan cusub oo soo baxay udhowda taageero in maxaan idhaahdaa masalan dhinacan nabadda yani muxaafidiintu waxay aaminsan yihiin qof waliba inuu hub qaadan karaayo laakiin dimuqraatiyiintu waxay leeyihin maya waa in yaraheeda wala limid galayaa la controla waxyaabo badan bay maaragtay ay ku kala duwan yihiin markaan eegno waxyaabahaas dhinaca iisheeg xagga bulshada masalan muxaafidiintu waxay leeyihiin waa in maaragtay dawladdu aysan soo faragelin qofka maraykanka yani caafimaadkiisa iyo soo yeeli lahaa dimuqraadiyiintu waxay leeyihin dawladda gacan bay ku leedahay waa in ay gacan ka geystaa waayo dad badan baa jira oo runtii keligood aan waxba qabsan karaynin marka guud ahaan waxaad moodaa in waxyaabahaas ay ku kala duwan yihiin markaan istusno ay noo soo baxayso marka labadan qof dhinaca masalan foreign-ka iyo militariga muxaafidiintu waa dad aada iyo aad maaragtay u jecel in maaragtay la farageliyo meelyoba ay dhibaatooyin ka taagan yihiin militariga dimuqraadiyiinta xoogaa way ka yaraha duwan yihiin taas oo kale marka labada qofi oo maanta u tartamayo run ahaantii jagadan madaxweynenimada waxay ka imaanayaan yani khalfiyadaas noocaasi ayay ka imaanayaan donald trump wuxuu leeyahay ba asiga markaas eegtid isheeg halkudhigiisa wuxuu kuleeyahay asigu waa waxaan rabaa ama waxaan rabnaa maraykanka inaan sare usoo qaadno
ama dib usoo noolayno awoodiisii yani wuxuu tilmaamayaa in maraykankii uu daciifay oo runtii hadda loo baahan yahay laba kaclayn oo kale in dib loo soo celiyo. Hillary waxay leedahay maya waxaynu guul ku gaaraynaa ama xataa yani awooddaas la sheegaya aan ku gaari karaynaa midnimo iyo wadajir baan ku gaari karaynaa awoodda maraykanka weligiis xoog buu lahaa haddana maanta wuu leeyahay. marka labadan u tartamaya madaxtinimada runtii khalfiyadaas ayay ka imaanayaan sida muuqata. waxaad moodaa ninka Trump la yidhahdo Donald Trump in ku liito maxaan idhahdaa xagga waayo aragnimada waa nama soo marin taariikhda maraykanka madaxweyneyaasha maraykanka waxay ka wada imaan jireen ama dhan military ama qof waayo aragnimo siyaasad lahoo ama congressman ahaa ama senate ahaa ama iisheeg governor wuxuu ahaa ninkani wax allaale wuxuu dhankaa ka siibtay ma jirto waa qof iska businessman ah. laakiinse Hillary waxaad moodaa in dhankaasi ay kaga wanaagsan tahay oo ay ahayd waxaan idhahdaa senator bay soo noqotay waxay ahaan jirtay first lady waagii Clinton. waxaa u dheer intaas inay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda runtii yani waxyaabo badan bay xagga waayo aragnimadu ay kaga dheeraysaa. Donald Trump wuxuu kala kusii liitaa runtii in aflagaado badan iyo maxaan idhahdaa cayn dad badan u geystay runtii across the nation. Mexicans dadkii madooba isheeg president Obama ku dhiisay inuu yidhaahday maba ah maraykan oo waa diintiisuna waa muslim runtii cid u dhaafay male. militariga oo caayay muslimiintu yidhi waa terrorist haweenkii buu yidhi waa doofaaro yani haddaan wadno ma dhamaanayso. waa mahadsantahay waad mahadsantahay waa kugu soo noqonaynaa. doctor cabdinuur sheekh maxamed adiga maxay kula tahay? bismillahi raxmaani raxiim waan idin salaamaya dhammaan bahda v o a dhegeystayaasha gaar ahaan professor maxamed mukhtaar waa salaamata walaal. waxaan ku raacsanahay professorku macluumaadkaas uu bixiyey in labada xisbi ay arrimahaasi ay ku kala duwan yihiin. hase ahaatee waktigan xaadirka ah waxaad moodaa dareenka shacabka maraykanku inuu maaragtay bedelmayo oo arrimahan qaxootiga iyo dadkan kusoo badanaya dalka iyo maraykanka oo cadiinkii uu yaraanayo oo dadka kalarka ah ama madow ama Spanish ama muslimiin ama dadyoga kale ay kusoo badanayaan ayaa wuxuu keenay dareen ah dalku inuu isbedeli doono oo ay ku badan doonto dadka ajaanibta ah asalkooda ahaa oo imaan doona. marka taa ayaa keenaysa in shaksi sida Donald Trump oo kale ah in uu ku adkaysto inuu yiraahdo waxaan soo celinaynaa dhaqankii hore, waxaan soo celinaynaa dowladnimadeenii hore, oo ay dad badan oo hadda dadka raacsan waxay u badan yihiin dadka ragga cadaanka ah oo runtii dareensan in tira ahaan cadaanku uu ku yaraan rabo maraykanka sida taariikhyahan dadka aqoonyahanku ay sheegayaan ay leeyihiin in 20 sano iyo 30 sano soo socda ajnabiga uu badan doono. marka culayska ku imaanaya republicanka wuxuu yahay in sida professorku sheegay Spanishka oo dalkan aad ugu xoogan dadka kale ajaanibta iyo inta kale cadaanka oo haweenka ay u badan yihiin inay dhanka Hillary Clinton ay u bataan oo ay maaragtay arrinta oo u muuqato laba kaclayn la leeyahay dalka in lagu soo celiyo suu ahaan jiray sida hore uu ugu dhawaajiyay walaalihii kasoo hadlay ingiriiska oo arrimahaasuna ay ka socdaan Yurub oo dhan bay ka socdaan walwalka laga qabo qaxootiga Soomaalida muslimiinta oo dhan. marka waxaan isleeyahay haddii la yiraahdo waa uu ku guuldaraysan doona Donald Trump oo waxaa kasoo bixi doonta meesha Hillary Clinton oo runtii soo celin doonta dalka maraykanka iyo macnaha uu leeyahay oo ah dal wadajir yani sidiisaba ku dhisan dad qaxooti ahaa oo adduunka ka kala yimid oo dadkii asalka ahaa aysanba ku badnayn runtiina keeni doonta in dad badan ay xaqiiqsadaan in ajnabigii dalkan yimid ay ku xoogeystaan dalkuna uusan u noqon doonin siduu ahaan jiray 200 sano ka hor. waa gartay aad baad umahadsantihi labadiinaba qadka noogu jira waad kusoo noqon doonaa. dhinaca kale inkastoo baraha bulshada aysan dunida ka cusbayn haddana waxay doorashadan maraykanka ka ciyaareen door muuqda si ka duwan doorashooyinkii hore ee maraykanka waxaana ololayaasha musharaxiinta baritamaysa ay aad u adeegsanayeen baraha Twitterka iyo Facebook.
dhalinyaro fara badan oo dunida kala jooga oo iyana hadal hayay doorashooyinkan ayaa aada uga hadlayay baraha internetka ilaa maanta iyagoo adeegsanaya baraha bulshada qaarkoodna ay kala taageersan yihiin musharaxiinta baratamaysa qaar ka mid ah dhalinyaradaasi waxaa la hadlay waryaheena nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintan kooban nooga diyaariyey. sida dhalinyarada kale ee caalamka dhalinyarada soomaalida ayaa baraha bulshada dhexdooda aada uga dooday doorashada madaxtinimada dalka maraykanka ee maanta. barta facebook oo ah aaladda ugu badan ee ay soomaalida joogta dalka iyo dibaddiisa fikradaha isku weydaarsadaan ayay dhalinyaradu aada ugala socdeen maanta doorashada taariikhiga ah. amran sheekh axmed oo gabar dhalinyaro soomaali maraykan ah ayaa ka mid ah dhalinyarada dhinaca wacyigelinta u adeegsada baraha bulshada. amran oo ku nool gobolka ohio waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee saakay codeeyey waxayna ka hadlaysaa dareenkeeda kadib markii ay codkeeda dhiibatay. wallahi aada u faraxsanahay waxawaay aniga waxaan usoo codeeyey Hillary Clinton saakay leenka aada u dheeraa 6:30 la furay meesha lagu codeeyey marka 5:30 safkaan ku jirnay yes 6:00 subaxnimo 12 saac bar. Hillary Clinton horta waxa waaye qofta ugu horreysay taariikhda Mareykanka gali doonto oo maxay ahayd gabadhii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka ayaan rajeynaynaa inay noqoto sidaas darteed ayaan ku doortay. soomaalida ku nool qaaradda yurub ayaa iyaguna indhaha la raacaya doorashada ka socota maraykanka. inta ku tixan baraha bulshada gaar ahaan dhalinyarada ayaa maanta si weyn isula wadaagaya wararka doorashada. xasan wehliye oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool dalka holland ayaa ka mid ah dadka faalooyinka ku aadan doorashooyinka maraykanka ku qoray barta facebook. bishakhsiyan aniga haddaan isaga hadlo social media facebooka tusaale ahaan maanta waxaan soo geliyey qoraal aan uga hadlayo saameynta ay nagu yeelan doonto doorashada maraykanka ka dhaceysa haddaan naha soomaalida ku dhaqan waddanka holland sababtoo ah taas waxaan u leeyahay sida maraykanka ay uga tartamayaan Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa doorashadana soo aadan ee waddanka holland ka dhici doonta waxay ku tartami doonaa hogaamiyaha DFA Khil Filder iyo dabcan xisbi kale oo la tartami doono oo ah xisbi cunsuriya iyo xisbi social oo ku tartami doona. soomaalida ku nool maraykanka iyo guud ahaan caalamka intiisa kale intooda badan waxa ay taageeradoodu u badan tahay murashax Hillary Clinton. haddaba sababtu maxay tahay? waa kan cabdilnuur daahir oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee degan magaalada istanbul ee dalka turkiga islamarkaana aada u adeegsada warbaahinta bulshada gaar ahaan facebook. dhalinyarada soomaaliyeed oo istanbul ku dhaqan ama turkiga si guud ahaan xitaa leh maxaa bulsho qaabab kala duwan hase ahaatee u badan inay taabacsan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayay falcelin ka sameeyeen maanta iyo maalmaha oo dhanba social mediaha meelaha u wanaagsan oo lagu kulmay ahayd dadku ay warbixinada isku dhaafsadaan. sababta ay u sameynayaan waxay tahay Donald Trump oo taqaaniin oo inta badan nin kasoo horjeeda dadka soo galootiga waddanka Mareykanka iyo si qaasaba dhowr mar dadka Soomaalida dacaayada ka fidiyay ama yiri waa argagixiso darteed dadka Soomaali dhamaantood Donald Trump inuu guuleysto waxay u arkaanba Soomaaliya oo la qabsaday ama Soomaalida rajadooda Yurub ama Ameerika oo dhibaato ku imaaday. si kastaba ha ahaatee saacado aan badnayn kadib ayaa la kala ogaan doonaa qofka ku guuleysta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee maanta oo ay ku tartamayaan murashaxiinta kale ah Hillary Clinton iyo Donald Trump. aada ayuu u mahadsan yahay wariyeena nuur xasan nuur bukhaari. haatana balaan eegno aragtida qaar ka mid ah soomaalida ee doorashadan ka socota maraykanka. caasha bila cumar soomaaliya magaalada la yidhaahaa buuhoodlaan joogaa wallahi dadkayda doorashado anigu gabadhaan jiraa waxaa weeye gabadhu xaquuqul islaamka ilaalinay waxaa weeye gabadan midabka koor wadin waxaa weeye gabadh dadaalaysa oo maraykanka dadka jooga wada tixgelinaysa xagga ceeb la-aanta. cabdirasaaq maxamed oo joogo dhadhaab gobolka waqooyi bari doorashada maraykanka waxay tahay doorasho aada xamaasadeeda u kacsan tahay oo doorashooyinkii kale ka duwan. fikir ahaan iyo ra'y ahaan haddii aan ka hadlana aniga codkeyga waxaan siin lahaa musharaxa Hillary Clinton oo siyaasadda maraykanka wax badan ka taqaanto xilal duwanna kasoo qabatay. marka doorashadan waxay aada ay iisoo jiidatay sidaan u arko oo waxay tahay midii hore ka duwan. musharaxa la taagan ee hadda la tartamay Donald Trump markaan fiiriyo khudbadihiisa waxaan ku arkay qodobo aada iyo aada u qalasan oo ku saabsan sida soo galootiga in waddanka uga bixin doono. aamine maxamuud ismaaciil oo joogta buuhoodle anigu waan la socdaa doorashada in badanna waan dhegaysanaynay codkeeduna aada buu noogu soo dhacayay marka haddaan dareenkayga dhiibto
anigu gabadha baan raacsanahay iyagaan dareenkayga raacsan yahay waxa dalka joogiyo waxa intaan joogaana dareenkeeda iyaday raacsan yihiin inayna jirinta ma aniga igu ridiyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida aragtida ay ka dhibteen doorashadan oo aan kula xiriirnay iyagoo jooga meelo kala duwan oo Soomaaliya ah. barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan aragtida Soomaali fara badan oo iyagana ra'yigooda ka dhiiban doona. haatana aan ku noqono falanqayntii labadan musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump. Professor Cabdinuur Sheekh Maxamed iyo Professor Maxamed Mukhtaar oo maqlaysaan. nacam labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karaa dalkan Mareykanka? aan ku hormaro Dr. Cabdinuur. waad mahadsan tahay walaal runtii waxaan isleeyahay Mareykanka walwal badan laga qabo Donald Trump doorashadiisa hase ahaatee waxaa jira system keeni karo system waxaa jira oo balance leh yani sanadka iyo congresska ayaa waxay awood check and balance ku sameynayaan executive-ka oo ah madaxweynaha la doorto marka waxay ku xiran tahay oo keliya ciddii la doortaba labadooda musharax in ay helaan aqalka sare iyo aqalka maaragtay congresska haddii labadooda aqal ama ay republican wada noqdaan dabcan madaxweynahaasi wuxuu helayaa in arrimaha uu rabo inuu bedelo inuu maaragtay socodsiiyo hase ahaatee hadday shacabku ay madaxweyne doortaan hase ahaatee ka reebaan cod aqlabiyad ah inuu ka helo aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa imaanaysaa sida hadda haysato madaxweyne Barack Obama oo ah in republicanku ay u diideen barnaamijyo badan oo uu hore u ballan qaaday inuu socodsiiyo oo keenaysa marka madaxweynaha talada haya inuu guuleysan waayo maxaa yeelay haddaadan haysanin aqlabiyadda xisbigaada aqalka sare iyo aqalka hoose dabcan waxyaabo badan oo madaxweynuhu uu soo bandhigo waa lagu celinaya marka waxaan isleeyahay sida hadda ay u muuqato Hillary Clinton haddii ay hesho aqlabiyad aqalka sare oo sanadka ah yaa loo moodaa aqalka hoosena uu noqon doono jamhuuri dabcan waxay helaysaa xoogaa yar maaragtay barnaamijkeeda inuu wax ka socdo hase ahaatee ma filayno in jamhuurigu ay wada qaataan labada aqal iyo madaxweynaha taasoo keeni karto in barnaamijka uu wato Donald Trump uu dhaqan galo. waa mahadsantahay Dr. Cabdinuur waa isku soo noqonaynaa Professor Maxamed Mukhtaar labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karayaa markaad eegto? mahadsanid dabcan waxaa waaye haddii la doorto Hillary waxay noqon doontaa gabadhii ugu horeysay Maraykana oo runtii noqoto madaxweyne dalkan Maraykanka. Trumpna haddii asiga la doorto wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyey oo runtii asigoon lahayn maaragtay khilfiyado isheeg siyaasi ah. ninkani weligii siyaasi ma uusan soo noqonin, ninkani weligiisa military ma uusan soo marin, way aragnimadiisa saa ay u liidato kii ugu horeeyey ayuu noqonaya. labadoodiba kii guulaystaba runtii waxaa sida Dr. Cabdinuur sheegayo waxaa ka hor imaanaya maaragtay taxadiyaad badan baa ka hor imaan doona, challenges badan bay yeelan doonaan maadaama maamulka siyaasadda Maraykanka runtii awoodda ay kala qaybsan tahay sida Afrikaanka oo kale moogtahay madaxweynuhu asigaa wax walba ayaa ka mas-uulaya, asigaa wax walba samayn karaya meeshan ma jirto. yani awoodda siyaasadeed iyo maamuleed dalka Maraykanku way qaybsan tahay, way baahsan tahay. marka qolooyinkaas congresska senatka iyo waxyaabahaas oo dhanba haddaysan iskaashanin waxaa dhici karta in dhibaatooyin fara badan ay ka hor yimaadaan labadaba maaragtay markay ay madaxweyne noqdaan. gaar ahaan haddii uu noqdo isheeg Trump madaxweyne hadduu noqdo iska ilaawe awoodahan siyaasadeed oo ka hor imaan doonta waxaaba laga baqayaa dhibaatooyin kale xataa inay yimaadaan oo dadkii wuu kala qaybsan yahay ilan asiga sidau u tartamayba waxay wax abuuray dadkii Maraykanka inay nacayb ay maaragtay oo meesha ka soo baxo. marka nacaybkaasi xataa waxaa laga yaaba inuu dhibaatooyin u keeno. waxaan isleeyahay malaha Hillary hadday guulaysato ayaa la qaatan waayo Hillary maadaama ay taariikh siyaasadeedna ay leedahay
ayna tahay runtii qofkii ugu horeysay oo maraykan oo haweena ay madaxweyne noqoto in dad badani ay soo jiidato bulshaweynta maraykanka iyo dunida oo dhan maaragtay in loo soo riyaaqo ayaa dhici karaysa. waxay kaloo Hillary ku wanaagsan tahay ama taariikhdeeda laga heli karaya markii sanadka sanatorad ahayd inay ahayd qof runtii xariifad ah oo isku dayaysay inkastoo iyadoo ay dimuqraadiyad tahay inay ka helaysay kalsooni senataro kale oo mataqaana jamhuuriyiina marka inay crossing the aisle waxaan la yidhahdo ay ka gudbi karayso labada dhinacba ay maaragtay isaga musharxi karayso ayaa dhici karaysa oo laga baqayo Trump inuusan taa oo kale uusan heli karaynin oo ay ka hor imaan doonto diidmo fara badan oo iska qayaxan sidoo isaga wax walba u diidayay inay taas ka imaanayso ayaa laga baqaya marka rugaantii way jiraan yani dhibaatooyin badan inay la kulmi doonaan waxaan isleeyahay laakiin rajadu waxay ku jirtaa haddii Hillary Clinton ay guulaysato in ay kasii yaraan karayaan dhibaatooyinka ka hor imaan karayso. waa gartay labadiinaba waxaan idin siinayaa hal daqiiqaan idin siinayaa aad kusoo koobaysaan bal soomaalida markaad fiiriso dalkan maraykanka ku nool gobolka Ohio gobolka Minnesota iyo meelo kale doorashadan iyagu maxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalka maraykanka ka dhacay? waxaan ku hormarayaa professor Cabdinuur. mahadsan tahay runtii doorashadan waa mid ka duwan doorashooyinkii hore maxaa yeelay waxaa jooga musharax dhahaya muslimiinta ayaan dalka ka celinaya musharax dhahaya dhibaatooyinka dalkan waxaa horseeday soomaalida degan Minnesota musharax dhahaya wax walbo maaragtay dhibaatada dalkan ka jira waxaa keenay dadkan soo galo marka dabcan soomaalida ishaba maaragtay farta laga geliyey oo dabcan qofku markii la taabtaabto waa maaragtay la khasbaya marka dadka khasban Soomaali kaliya maaha muslimiinta dalkan ku nool oo dhan baa maaragtay ku khasban inay ka hortagaan ninkan u muuqda nin cadaawad ku ah jiritaankooda haweenka ayaa maaragtay saa oo kale usoo baxaya waxaa saa usoo baxaya dadka Isbaanishka ayaa saa usoo baxaya marka runtii qofku markuu cadaawad badan samaysto oo dabcan waxaa la arki jiray murashax raadinaya inuu codka u helayo badsado uu dadku soo dhawaysto oo sirtiisa ay u qarsoon tahay laakiinse sida professor Mukhtaar uu sheegay ninkaanu ma aha nin conventional ah oo caadi ah waa nin maaragtay matalaya codkan qarsoon oo caraysan oo diidan isbedelka midabka isbedelaya dalka Mareykanka cod diidan baa jira oo qarsoona codkaasuu matalaya uu banaanka la soo baxay marka Soomaalidu way ku khasban yihiin inay maaragtay arrinta ka hortagaan Ohio maanta aad baa looga booday Soomaalida codkooda wuxuu u badan yahay Hillary Clinton runtii markaan gadaal u laabto dabcan dimuqraadiga iyo republicanka labadaba waa laba maaragtay xisbi oo qofka Soomaaliga ah ama qofka Afrikaanka ama qofka Muslimka ah uu labadaba raaci karo hase ahaatee midna wuxuu ku wanaagsan yahay sida professorku sheegay dhaqamada soo jireenka ahaa oo Islamic iyo caadooyinka midna wuxuu ku wanaagsan yahay xuquuqda insaanka iyo dadkan maaragtay madowga ah iyo dadkan la dhiban iyo xuquuqdooda loo diriro hase ahaatee hadda labadaas arrimo lama fiirinayo waxaa la fiirinayo oo keliya shaksigan hadduu noqdo hogaankii dalka masiirkaaga muxuu noqon doonaa marka Soomaalida waxaan isleeyahay iyo waxay ka mid yihiin muslimiinta dalka Mareykanka kulligoodan maanta waxay u fuudayaan inay jiritaankooda ay qiraan oo ay raacaan dhanka maaragtay Hillary Clinton. waa gartay aad baad u mahadsantihiin Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday Soomaaliya haatana ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio iyo Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka qora taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe barada ka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalka Mareykanka labadiinuba aad baad u mahadsantihiin falanqayntiina. Adinka